السلام عليكم شكرت. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا وفدي عيسى كسعود الدري دبا وحربنا هنا الله كلنا وفدي مدحتوية جمهورية الصومالي لان هنلو سود دايو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سودو جندي وحنا هاي وكيل كصعدة مدحوينها جمهورية الصومالي لان مدن عبد الرحمن محمد عبد الله عرو. waxaana la iisoo wakiishay wada hadallada aad u socoteen inaan garwadan ka noqdo soo dhawaada xaaladana nooga warrama sideed wax u rabtaan maxaa tabanaysaan waxaanu idinka doonaynaa haddaan nahay gandihii beesha ciise inaa haddaad tihiin xukuumadda Somaliland inaad na siisaan saylac iyo lughaya sidoo kalena aad ku dhawaaqdaan Gedabiirsi inuu xadkiisu yahay magaalada Boon halkaana uu noo soo dhaafin inaad ku dhawaaqdaan ayaan doonaynaa wadda annaga madaxweynuhu taa nooma wakiilane dhul baad bixinaysaan nama odhanine nabadayn baad ka shaqaynaysaan buuriya nabadda qodobka nabadda aynu ka wada hadalno waxaanu idinka doonaynaa inaad nabadda ku dhawaaqdaan si loo gaadho horta xasilooni taasaa muhiima inaynu ka wada hadalno hadda waxa tagga xun la siilka habartiile annagu nabad dooni mayno xabad joojin baan samaynaynaa haddaanu nahay gandihii xabad joojin baan ku dhawaaqaynaa wax nabada laakiin la yiraahdaa ma jirto laakiin waxaan idinka doonaynaa maadaama dawladii tihiin oo idinku dawladda dadka tihiin wax u kala qaybisa inaad dhulkaas saylac iyo lughaya aad siisaan Gedabiirsigana aad xadkiisa ku celisaan oo xadkiisu inuu Boon ku joogo aad u sheegtaan intaa waxaan ahayn oon ka wada hadli karnaa oo beesha ciise idin kala hadli kartaa ma jirto waaryaareen dee geometrikii jagooyinka lagu bixinayo ma joogne maxay tahay dhul baad ma siinaysaan talabaad dhulka dawladdu dama iyagaa dhulka bixibixisa war waxay naga daayo nabadda ma ka wada hadalnaayo qoladii kalena ma keenaayo nabadda ma ka hadlaysaan maxay tahay dhulna siiyadu waar anagu idin fahmi mayne heenaaro isku noqda xataa dhul baan doonayaa aado anigu ku garan maaye afkii dawladuhu ku hadlayeen kuma hadlayside kuma hadlaysid afkii dawladdu ku hadlayeen waxaan rabaa dadkayga Jabuuti joogo inaan soo dejiyo oo dib u dejin ugu sameeyo dhulka saylac iyo lughaya iyagu iska lahaayeen marka dadkii baan soo rarahayaa dadkan meesha jooga inaad iga kaxaysid baan kaa doonayaa wax nabadoo la wada yiraahdo oo ka wada hadlaynaa ma jirto cidna kala hadli mayno anaa ciise madoobe waarya ciiso aanu idin fahmi maayo kowdhaha meeshana joogo mitir ma joogno lagu bixinayo jawanadii jagooyinkii dad baa soo rarayaa madadan Somaliland u dhalin baad soo raraysaa Jabuuti ka soo raraysaa oo saylac iyo lughaya rabtaa inaad soo dejiso kusoo deegaamiso waanu idin fahmi maayo nabad baanu halkan kaga haynaayo nabadda ma qaadanaysa dib isugu noqdo ay shacay iyo diri dhabana ku noqdo wal afgaali iyo af islaam mid leedii ku yimaado royefis tagga xun la siilka habartiile si dawladnimo uma hadlayaan waxaynu iska qasbani aadayna mari meeshan wax lagu wada hadlay ma yaale walaalkay baan moodayo walaal dhul isii baan idhi maxay tahay siduu ila hadlay shabaab male